haddii uu dhaawacmay yuusan dhiig la-aan inooga dhiman iyo jooji colaada gobolka sool waa halkudhigyo ay isticmaalayeen dhalinyarada degmada Carmo oo gurmad u fidinaya walaalahooda kusoo dhaawacmay deegaanka dhumay ee gobolka sool halkaas oo dirir colaadeed ay ku dhex marayso beelo walaalo ah oo halkaasi wada dega qaar ka mid ah dhaawacyadii shalay ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Bilcil ee degmada Carmo dhalinyarada ku dhaqan degmada Carmo oo gurmad dhiig bixina u fidinaya dadka ku soo dhaawacmay colaada deegaanka dhumay ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ah ee dirirta colaadeed halkaasi ku dhex marayso waxana ay sidoo kale ka codsadeen isimada dhaqanka in sida ugu dhaqsiyaha badan ay u kala dhex galaan beelahaasi walaalaha ah waxaan rabaa halkan inaan baaq nabadeed uga diro labada beelood ee walaalaha ah ee ku dagaalamaya koonfurta gobolka sool runtii colaad wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leenahay walaalaha dagaalka joojiya waxaad isku haysaan ma jirto Soomaali baa tiin walaalaha tiin dad wada dhashay baa tiin wayna dhibaysaa colaadda dhexdeena waxaan ugu baaqayaa inta idinka dhimatay iyo inta idinku dhaawacatay ayaa dhibaato idinku filan hal la joojiyo sidoo kale waxaan baaq u dirayaa isimada Puntland iyo kuwa Soomaaliyeedba waxaan leenahay colaadda la kala dhex galo labada walaalaha beelooda walaalaha ah waxaan dagaalamaya in dadkaas ku dhaawacmay iyo kuwa ku dhintay ba sidii loo daryeeri lahaa la iska xil saaro waxaan sidoo kale baaq u direynaa dadka xarumaha caafimaadka ka shaqeeya iyo kuwa mataqaanaa ka agadhowba inay dadka gargaar caafimaad u fidiyaan oo dhiigag baa loo baahan yahay iyo daryeel caafimaad iyo dawe dadkaas gargaar caafimaad baan ugu baaqaynaa in loo fido inta waxaan ugu cusub ka codsanaynaa codsiga ah in xabadda la joojiyo oo qolo u kala dhigo calanka nabadda la qaado sababtoo ah dhaqaale burbur iyo dhibaato waxaan ahayn kuma hayo maanta dagaal ka socda xilli abaareed baa lagu jiraa wacyi dalku ugu jira oo aad u yahay xaalkiisu u yahay waxaan ka codsanaynaa dhammaan shacabka iyo waxgaradka gobolka sool iyo reer Puntland iyo dhammaan inta Soomaaliya dadka Soomaaliya ka haysa inay arrintan ka qayb qaadato waxba joojo ku samaysan halkaas oo dadka loo aan fariin u dirayaa walaalaha gobolka sool gaar ahaan deegaanka dhumay bilfadlag walaalayaal aan joojino colaada oo si wada jir aan u joojino dagaal wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta arrinta halkaasi taala ee maanta dhumay ka soo cusboonaatay waa ku dhimay iyo ka dhimay waxdana iyo wax faa'iido ah oo inoogu jirtaa ma jirto intii ay dhibaato lahayd waynu dhannamin dhammaan isimada dhaqanka ee Puntland iyo guud ahaan isimada Soomaaliyeed in arrintaas loo istaago arrinta halkaas maanta ka jirtay ma ahan arrin loo fiirsan karo arrin loo dulqaadan karo ma ahan ka waxaan ka codsanayaa isimada in ay arrintan u istaagaan maanta sidoo kale dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan leeyahay arrintan waa inaan ka galgalanaa arrintan waa in aan ka hortagnaa waxa meesha ka dhacaya ciidina kama dagaal ah kamana indhala ah waxa maanta dhumay ka socda dawladda oo aan leeyahay dadka dhaawacmay intii dhimatay inaga dhimatay laakiin dadka dhaawacmay wariyay dhiig la'aan iyo dawo la'aan inooga dhimatay dadka aan dawo la soo gaarno waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa isbitaalka Bilcil ee degmada Carmo oo dadkaasi qaybtood la soo gaarsiiyay oo gurmad caafimaad u fidiyay laakiin gurmadka caafimaad ee isbitaal Bilcil uu fidiyay kuma filna maanta dhibta taala iyo dhibaatada maanta dhacday ma aha mid uu ka feeyn halkan baan uga dirayaa nabadeed walaalaheena cod dhex marayso dirirtu gobolka sool runtii arrintaas dhibaatada ah oo kula dhibina ku wada haysa oo colaadda ah oo dhimashada ehelka ah ee ehelkeen dhimanayo waxaan rajaynaynaa oo doonaynaa insha Allah dhammaantiin ka codsanaynaa inaan barnaamijkaas laga hortago la joojiyo cid kasta oo xilka saarcidooba oo barnaamijkaas walaalayaal la iska joojiyo waxaan ognahay inaan dagaal faa'iido ka imaanayn cid ku dhimato oo kala ugu yaraado ma ahan inaan wax faa'iido ka imaanayn cid kasta oo aynu isku dayno in loo aaro ama la baarkeeyona inaan aaridii la gaarsiinayn oo hadda qof dhintay qof kale intuu wuxuu dagalo isaga ma dhiig sii galaya kii kale wuxuu tari maayo dhintay isna waa tegaya dib uu ka qaadayaan maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka Bilcil General ayaa sheegay in dhaawacyo kala duwan la soo gaarsiiyay kuwaasi ay gargaar caafimaad u fidiyeen balse waxa ay sheegeen in dhaawacyadu ay aad u tiro badan yihiin loona baahan yahay in laga gacan siiyo isbitaalka Bilcil sidii dawo iyo dabiib loogu sameyn lahaa dadka ku soo waxyeeloobay deegaanka dhumay dadka isbitaalka Bilcil uga qaadanayo dadka qaraad ku soo dhaawacmay lagu soo cusboonaaday waxa weeye
inuu si bilaash ugu sameeyo first aid waxa loo yaqaan ama gargaarka degdega ah iyo inuu mataqaanaa dhiig joojintooda iyo in dhiig loo shubo blood donationkooda uu ka qayb qaato si fiican maaragtay kaalin weyn haysto intaas wixii ka badan oo dheer isbitaalku runtii waa isbitaal private ah waana isbitaalkii sidoo kale degmada laakiin inuusan awoodi karin oo uusan xamili karin awoodda intaa tira la-eg ee dadkan oo dhan in wax loo wada qabto oo masalan daawadii dadkan waa in lala soo gaaraa dowladdu waa ina ka qayb qaadataa daawada dadka loo keenaa waa in loo keenaa waxyaabaha asaasiyaadka oo kaleeto sida daawadaas iyo wixii taakula oo kaleeto maxamed bare saciid maxamed dadaal raadiyaha iyo telefishinka dowladda puntland